adduunka meediya madasha dhaqanka iyo dhacdooyinka inta badan dunida islaamka ayaa soonka sunnada ee loo yaqaan yawmul ashura kaasi oo ay kaga dayanayaan rasuulkeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelay kaasi oo faa'iido weyn u ah ummadda muslimiinta oo alle kaga dambi dhaaf dalbanaya haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa si kooban faa'iidada ay leedahay in la soomo maalinta Ashura waa maalinta sagaalaad ee bisha Muharram amba Soomaalidu ay u taqaano sako waa maalintii alle uu badbaadiyay Nabi Muuse iyo qoomkiisa Fircoonna uu halaagay taariikhda maalinta Ashura sida ay ku timi waxa la warinayaa in ay ahayd in rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam markuu u soo hijrooday magaaladii Madiina waxa uu ku arkay yahuuda degan magaaladaasi oo sooman markaas ayuu ku yiri waa maxay maalinkan aad soomantihiin yahuudi ayaa markaas waxay ku jawaabeen maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin mahadnaq ah waa maalintii uu alle badbaadiyay Nabi Muuse isla markaana uu halaagay Fircoon iyo qoomkiisa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ayaa maalinkaasi soomay isagoo alle kaga mahad celinaya wuxuuna yiri Muuse annaga idin kaga xaqnimo badan dadkana waxa uu faray inay soomaan marka loo eego taariikh ahaan sanadkii labaad ee hijriyada soonka Ashura waxa uu ahaa mid waajib ah balse markii muslimiinta lagu waajibiyay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa la joojiyay waajibnimada soonka Ashura oo waxa laga dhigay mid sunno ah oo qofkii doona sooma qofkii doonana ka taga balse muhiimad iyo fadli badan leh soonka maalinta Ashura axaadiis badan ayaa ku soo aroortay balse waxaynu soo qaadanaynaa xadiiska uu warinayo saxaabiga Abdullah ibn Abbas nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri soonka maalinta Ashura waxa alle kaga ajir xisaabsanaya inuu ii dhaafo danbiyadii sanadkii tagay haddaba maalintaas in la soomo waa sunno muhiim ah oo aad u fadli badan waxaana loo baahan yahay in la soomo maalinta Ashura maalinta ka horeysa sagaalaad amba maalinta ka danbeysa ee 11aad si yahuuda loo khilaafo maadaama ay soomayaan maalinta Ashura kaliya warbixintana waxa qalinka u qaatay Ibrahim Asharowi haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe leh asxaabtana la wadaag mahadsanid